الحمد لله الأرض أضعف من الأوز يا جماعة إلهكم ما ذكر شكري وسو حيا كورك منك إذا مركاتك كتير كل فين تو بولرزين بولرسال ما بولرين maalin dhaxdaas aan imaanay aabaa naga soo booqanay waxaa noola sheegay in qabriyada meesha yaalo dhan la wada baxsanaayo qof walba familkiisa ay baxsanaayeen ama dhow ama dheer in qabriyada dhan laga wada bixin doono saas awgiisa waxaa go'aansanay inaan maanta aaba ka bixino meeshaanan meelan ahayn oo ammaan uu yahay weligiis aan laga bixi doonin inaan geeno waa meydka Allah u naxariistay Cabdi Muriidi Dheere Ajakis oo laga saarayo qabuurihii uu ku aasnaa iskool bulisiya degmada Xamar Jajab qorshaha ayaa ah in lagu aaso goob kale kadib markii la sheegay in maalmahan xaalad cusub ay ka soo korortay qabuurahan dadka eheladooda ay ku aasan yihiin qabuuraha iskool bulisiya ee magaalada Muqdisho ayaa bilaabay in meydadka marxuumiinta ay ka soo saaraan halkaasi si ay ugu aasaan goobo kale kadib markii ay sheegeen in lagu wargeliyay in dhawaan qabuuraha la burburinayo inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn ujeedada arrintan iyo cidda uu ka soo baxay amarkeeda haddana dadka meydadka la soo baxay ayaa inoo xaqiijiyay in bulshada deegaanka iyo ciidamo goobta ku sugnaa ay u sheegeen inay jirto arrintan ku soo wajahan ayna kula talinayaan inay meydadkooda la baxaan maanta ayaa waxaa lagu arkayay qabuuraha iskool bulisiya dad kala duwan oo meydadkooda la baxaya iyo qaar qiimeynaya xaaladda kuwa oo ka cabsi qaba in ay iyaga oo aan ogeyn arrintaasi ay dhacdo maalmihii la soo dhaafaya ayayna dadku qabuuraha kala baxayeen meydadka maanta la bixiyay waxaa ka mid ahaa Allah u naxariistay Cabdi Muriidi Dheere Ajakis oo ka mid ahaa majaajiliistayaasha ugu caansan Soomaaliya oo halkan lagu aasay 27kii bishii 9aad 2021 caruurtii oo dhalay iyo asxaabtiisii ayaa meydka marxuumka halkaas ka saaray caruurtii uu dhalay iyo asxaabtii ayaa meydka marxuumka halkan ka saaray kadib markii loo sheegay warka ku saabsan burburinta qabuuraha maxamed cabdi muriidi oo loo yaqaano jaceylow isla markaana uu dhalay marxuum Ajakis iyo xubno kale oo ehelka kamida ayaa TV-ga Universal uga waramay sida ay akhbaartan ku soo gaartay waa dhabahay Universal TV aad u mahadsantihiin maanta waxa imaanay qabriga aaba oo maalin dhaxdaas aan imaanay aaba naga soo booqanay waxaa noola sheegay in qabriyada meesha yaalo dhan la wada baxsanaayo qof walba familkiisa ay baxsanaayeen ama dhow ama dheer in qabriyada dhan laga wada bixin doono saas awgiisa waxaa go'aansanay inaan maanta aaba ka bixino meeshaanan meelan ahayn oo ammaan uu yahay weligiis aan laga bixi doonin inaan geeno saas awgiisa u maanay asaasad saaka inaan baxayno qorsheynaa jirto oo aan ku duugno insha Allah meeshaas aan rabnaa insha Allah inaan ku duugno wallaahi kulli qof walba familkiisa wuxuu jecel yahay meel uu ku booqan karo oo ku soo ugu duceyn karo mar walba ku ziyaaran karo marka qof walba hadda diiba mar la dhahayo meeshii qabriyada waa laga bixinaa qof walba waxaa dhihi lahaa waalidkaaga intii beri meel aa ku booqata waxaa kuu fiican inaad soo bixiso oo meel hadda amni oo aad hubto inaan dib loogu bixinaynin insha Allah taas aan ku baaqi lahaa ummadda oo meesha dadka ku duulay malaayiin qof meeshan ku duugan qofkiiba awood inuu waalidkiisa ka baxsado oo meel kala geysan karo waxaan ku baaqi lahaa inuu meeshiisa geyso insha Allah waa maasantahay TV Universal maanta waxa uu maanay adeerkeena inaan ka soo bixino qabriga maadaama meeshan laga dhahay maarat qof walba qabriga dadka waalidiintiisa u maadaha ka baxsadaan anana maanta waxa uu maanay adeerkeena inaan maanta qabriga ka baxsano oo meel kale ageysan meel kale waxa ku aasuna maaratay duurka la geena maaratay halkaan maanta waxa uu maanay inaan ka bixino meeshaas insha Allah meesha ageeno ilaahay naxariistaasna maxamed cali weheliye Universal TV magaalada Muqdisho